madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ku sugan magaalada Davos ee dalka Switzerland isla markaasna ka qayb galay shirka caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka ee World Economic Forum ee sanadda 2026 ayaa maanta ka hadlay muhiimadda istiraatiijiyadeed ee dekedda Berbera. Madaxweynaha ayaa la weydiiyay su'aal u dhignayd sidan: 61 companies are in already. kaliya dekedda gudaheeda waxaa ka shaqeeya 1200 shaqaalaha, waxaana aagga xorta ah ama free zone-ka ku sugan 61 shirkadood. Sida aan fahamsanahay, waxaa jira 66 shirkadood oo kale oo safka ku jira iyo 8 kale oo wada hadallo ku jira. Sidee ayaad u aragtaa waayo aragnimada DP World shirkadda la yiraahdo ee ku saabsan go'aankii hore ee ay ku maalgelisay Somaliland? madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku jawaabay sidan: marka hore waxaan u mahad celinayaa DP World oo qaaday tallaabo geesinimo leh kuna maalgelisay Somaliland sanadkii 2016. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shirkad maalgashi oo Ingiriis ah oo hadda qayb ka noqotay saamiyada DP World. tani waxay caddayn u tahay in Somaliland tahay dal lagu kala soonaan karo, nabad ah, isla markaana ganacsi lagula shaqaysan karo. sidaas daraadeed DP World waa tusaale wanaagsan oo u ah dhammaan sharikadaha iyo maalgashadayaasha caalamiga ah. DP World iyada oo la kaashanaysa Talyaaniga, waxaan doonaynaa inaan sii horumarino kaabayaal dheeraad ah sida marin ganacsiyeedyo ama corridors, dekedo ganacsi iyo adeegyo kale oo kaabayaal ah.